درسigu maanta wuxuu ku saabsiisayaa tasbiix. waxaanan u doortay bishan ramadaan maadaama lagu jiro iyo caalamulislaami maanta waxa ka socda daraaddeedba. ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wanabluukum bالshari wاlkhayri fitnة وإلينا ترجعون. naf dhammaanteed geeri bay dhadhamin baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala, oo noloshan aynu ku jirno hadday qadhaadha iyo hadday macaantay, hadday adagta iyo hadday fududdahay, hadday dhab kuula muuqato iyo hadday dheeldheel kuula muuqataba, ilaahay wuxuu leeyahay geeraa ka dambaysa. waxaanan idinku itixaamayaa baa ilaahay leeyay bishari wاlkhayr. sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamayaa baa alla leeyay subxaanaه wa tacaala. khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadha lagugu itixaami sidii nebi sulaymaanba loogu itixaamay, oo weliba imtixaanada qaarkood innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayay ilaa uu dalbaday mid ka weyn, imtixaan ka weynina la geliyo oo ilaahay subxaanaه wa tacaala geliyo uu ku guulaystay. dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey. dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami sida ambiyo kaloo badan qur-aanka ilaahay kaga warramay, qaar la dilay, qaar bukooday, qaar la xidhay, qaar la caymadiyey, qaar dalka laga saaray, qaar dab lagu riday, mashaakil oo dhan baa ilaahay ka warramay. haddaba mushkilaadkan iyo tasbiixda aan cinwaanka ka dhigtay maxaa ka dhexeeya? waxaa ka dhexeeya insaanku sidiisaba dhibta ilaahay subxaanaه wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. innagaa layna faray inaynu dadaallo, laakiin markaynu dadaalkan la nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno. waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uul ka yahay intii awooddiisa ah. laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha. haddana adigoo aan mas-uuliyadba gabin ayaad cadho gami waayi markaad aragto muslim cunaan la hayo iyo dad dhan oo muslimiinoo la baabi'iyey, dumar iyo carruur la tirtiray, dad gawaadhi la dulmariyey, qaar dayurada lagu garaacay, qaar kaarayaa laga dulboodsiiyey, qaar naabaa lagu riday. wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa ayaa cidhiidhi haddii muslimnimo inuun kugu hadhsantay. qofku inuu psychologically u dhiboodaana waa dhibabka ka mid ah, laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala tiriyaaq iyo dawow inaga siiyey laysku daweeyo dadka sayn badan ay hilmaameen. ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jeesjeesay ee dhib oo dhan loo geystay, ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla. qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah, tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah. ilaahay nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay fasdac bima tu'mar waacrid can اlmushrikiin inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun. aduu xaqa sheeg baa la yidhi, annaga kaaga filan kuwan dheeldheelaya, kuwa ilaahay khayrkii caabudaya diinla'aanta u baxay. laakiin haddana ilaahay wuxuu tilmaamay isagu intii saarayd markii la yidhi sheeg waxa kaloo loo tilmaamay dhib kale uu dareemaya haddana inay jirto. walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk baa ilaahay yidhi. waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi in laabtu ku cidhiidhiyoomayso oo saanay laabtu u cidhiidhiyoobin
iyadoo dawil qurba iyo intii ugu dhoweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhowi intuu ku dabagalo halkaad istaagtaba uu yidhaahda waa beenti kan yarana adeer u ah nebi maxamed adeerkii rumaa daba socday abilahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxa loo diiday inuu wax sheegi karo waxa la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun ay yidhaahdaan طufayl ibnu camar waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalaya ama wax sixro damaad waynu garanaynaa inuu nebigaba u yimo yidhi war waxa la yidhi waxoogaa waaliyaa ku haystay aan ku daweeyo riixdan tufaayo waxbaan akhriyaayo cidhiidhiga uu nebigu dareemaya calayhi salaatu wasalaam intuu leegyahay dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabu samaawaati walardi laga gaaloobayana wuu taagan yahay lacallaka baakhicu nafsak ilaahay ku leeyay naftaadaad cidhiidhi gelinaysaa ama halaagaysaa inay rumayn waayaan alle subxaana wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu idhi fasabbix bixamdi rabbik fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa la yidhi adigoo ku dheehaya ama se ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إلهي عيب يحمو كديرين يبال لي سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي عنطمن وحي النقائسة وحي اللي دشي عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمدنا وعكس هذا وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سونكسنا تقوم هضيصه وأتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وذا الصعدة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمك ديريسه وناقنا أظن نسبيسه وأتكا كور ديدبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحي داوك أغطى ضيق الصدر كوهيستا الله بعديدك وكن من الساجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحنا بقي سكوير الصبر وحيكو هذا أيامكو صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كبر النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبة رضا النفس إيا التسبيح دوين وذا الصعدان في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى با إلهي إلهي سبحانه وتعالى تصبيح لك عليه أدقو كمر يا إلهي حمدك قورمات لا يمنسه قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره انت بالتصبيح لك علي بالليل واقو انتانو برين تصبيح سو قبلكو انتانو دعين تصبيح سو هبينك برتن كيسة تصبيح سو مال انت اللي بدأ دعال تصبيح سو تصبيح دا إيه حمدك هداد ودبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى محاد قاريسة لعلك ترضى أي كي ترضى مفسرين تبرد بهالكم كفسره صلوات كان لو جيدا لكن علماء وحين والصلاة هي التصبيح صلاة لفت هذا تصبيحة في بيوت نادنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو ولا صلب إلهي كتل المام يصبح ده وحي مفسرين تذكر رعسيين إن يتهي محي صلاة دي أمسه
dee salaada waxyaabaha ugu weyn ee la qabtaayo qofka musalliga uu sameeyaa waa tasbiix iyo taxmiid oo nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaawiyata bnu alxakam ninkii salaada ku dhex hadlay ee dabeetana saxaabadu maagtay ee uu markii dambe nebigu u yeedhay uu waxbarayay wuxuu ku yidhi ina hadihi الصalaaة laa yaslaxu fiiha shayء min kalaami الnaas inama huwa الtasbiix والtakbiir وaqira'aة الqur'an walidalik bay culammadu waxay idhahdaan 7 meelood oo salaada ka mida la tasbiixsadaa